cabdiqafaar xaaji oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaana ku sugnaa magaalada Beledweyne aadna looga yaqaan magaaladaasi goorlo waxa qafaashay dhalinyaro sheegay in ay ku heeb yihiin Allahu naxariiste Ikraan Tahliil oo nisa xalay ay sheegeen in ay dileen al-shabaab balse al-shabaab arintaas ay iska fogeeyeen ragga qafaashay wiilkan dhalinyarada ah waxa ay sheegayaan inuu wiilkan ku heeb yahay isla markaana ay aad isugu dhow yihiin taliyaha nisa Fahd Yaasiin muuqaal ay soo bandhigeen ayay ku muujiyeen wiilkan oo ay qafaasheen sidoo kalena waxa ay ku hanjabeen inay dhibaato soo gaarsiin doonaan raggan waxa ay sheegeen inay sugayeen oo kaliya in ay kala cadaato arinta Ikraan sidaasi darteedna ay beegsan doonaan dad badan oo ku beela Fahd Yaasiin dhalinyarada Beledweyne ku dhaqan ayaa durba waxa ay bilaabeen baaqi kala duwan oo u dirayaan kooxda qafaalka geysatay in wiilka Cabdiqafaar aan wax shaqo ah ku lahayn arimaha soconaya waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in wiilkaasi xorriyadiisa la siiyo bal aanu daawano dadka wax qafaashay sida ay u hadlayaan السلام عليكم دكا فهد ياسين قبطي أنا كم مرسولنا دكا با وهاينا فيديو دقنا واني صديق دونا أنا ما ضد متابعنا لكن سحد قدب نلقص المايو من يلي فهد ياسين كشلاي دونا ويلكيسن حتى ياك عندك وهاينا هذا سلايرا مركو كنت بس هذا واحد كنت بس نوصل هذا سلايرا وقاص يكون هذا ساعات انتنه ورياتا ياتا هذا شك هذا عسى كده برا يا مهد هيرو مداتا هي مقلسين رو حسن وايا بحوك يا رو مهدي ما ارتحت له كدين هذا انا جاري لو ودي صارنا هي قولada ay ko badan waan isoo duub doonaa waan isoo si doonaa tasilay هيرو حسن adduunyo iyo aakhiro isku ma dhaafeen aniga ay hadaynan gabdheena qoyaanta hadana ka jawaabin aan ku inta aamusnayn xaqiiqa raadinayna hadana saasan u hayna saas هيرو حسن saasan u hayna aniga badan dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba waxay aad u hadalhayaan arinta ku saabsan hadalkii ka soo yeeray xalayto taliska nisa oo ku saabsan in Ikraan Tahliil ay dileen al-shabaab iyadoo goordhowna qoraal ay soo saareen ururka al-shabaab ay ku sheegeen in dilkaasi aanay wax shaqo ah ku lahayn ayna ula yaabeen sidii dadka Soomaaliyeed ay ula yaabeen waxaana ay tilmaameen in iyagu la masabidanayo sidaasi darteedna dilkaasi aanu soo dhaafsiisaneen gacanta nisa waa sida ay hadalka u dhigeen haddaba daawad adigu maxay kula tahay